بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي إبراهيم حسين خير لما أنا قصور دور تدقمت هذا قاله أفينا دمرويان أفين كعين كبراين مدحنا حكومة دولة ديجان الصومالية مدحنا مصطفى محمد عمر مدحنا حكيين ك اللي بنا ذا قولها الحاد ونسلام يا مركوبات مركي حكت كل أنواع عن كذا ربعنا سوجي دي مدحوينه حق أمنية كل حق أمنية وح الله كلا قاعد أفرق يبود لا بقى يبود كم كل يقول بلاقي جاري waxaan ka nahay marag xagga waxa weyn khilaafyada isku dhacda ka jira deegaanka kulli guulo badan ba hadda laga gaaray oo sidii waxa weyn 12 iyo 12 saacad kulli wax badan ba hadda iska beddelay xagga dhismaha hay'adaha nabadgelyada ee waliba xagga booliska iyo koortiga dambiyada idna xoog baa la saaray marka waxa wali madaxweyne dhiman oo in xoog la saaro baanta waa labadii kale hadhay oo xagga xuduudaha iyo waxa weyn xagga sirdoonka marka xagga xuduudaha kulli deegaanku xuduud balaaran buu leeyahay meelo badan hawlo badan baa ka jira waxaad moodaa si la qorsheeyay in looga hawlgelin dhibaatooyinka hadda dhacayo meelaha xuduudaha waxa weeyaan in xukuumad ahaan xagga horumarka laga gaabiyay yaa marag madoona inay hadda dhibaatooyinkan jira waxa weeyaan xalka aan u laanahay haddii dhulka wax horumar oo adeego caafimaad oo biyo iyo wadooyinka jiraan wax badan baa yaa waxa weeyaan hagaagi lahaa markaan waxaan rabaa waxoogaa inaan istuu taago xagga xaaladda galbeedka gobolka city afeenada waxaan ka codsanayaa waxa weeyaan 5 milyan in wax layga beriyo waaqica dhabta ee jiro waxaan rabaa inaan xagan ka sheego maanta maadaama aan dana hoggaanka gobolka City wax badan ogahay on xaaladda inta badan dhex joogno dibna inaan xukuumadda aan ka wada sheegaysano aan jecelahay haddana waxa weeyaan dadka inta u badan waxyaabaha baraha bulshada ka socda iyo waxa weeyaan waxun baa la arkaya laakiin waaqica halka marka la istaago iyo si la iska aaminsan yahay xaqiiqiyan cir iyo dhul bay isku jiraan saan wada ogsoonay galbeedka gobolka City 4 sano u dambeysay dagaalo waxa ka socday joogto ah weeraro horla ka socday dadaalo badan oo laga sameeyay way jiraan laakiin dadaaladii wali hadda may midhalin guulihiin rajaynaynay iyo isbedeladii sameeynay waxa weeyaan may hirgelin iyada asaas tahay waxaan ka warqabnaa dhulkeenii amba dhul Soomaaliyeed magaalada Soomaaliyeed baa maqan dhul baaxad la maqan garbaciisa iyo cadeyntii wixii ka dhacay waan ognahay khaasatan garbaciisa dad mirimageeda lagu xasuuqay oo kor u dhaafay 400 qof istiilna hadda meedkoogi ma hayno wax la gubay iyo wax waraaba cuna weey in horta saa loo ogaado waa muhiim magaalada cadeyti leedahay magaalada Cundhufo 75 kilomitir buu jirtaa cadeyti waxaan ka sii shisheynay 60 kilomitir oo qabalaha masalu leedahay ayaan ka siinay dhulka baaxadda leeg oo dhuldaaqsimeeda oo ku fiican xoolaha automatic ala gacanteena ka maqan yahay dhulkiina waa maqan yahay dadkiina waa maqan yahay xooliina waa maqan yihiin in horta saa loo ogaado weey xukuumaddu dadaal badan ka sameysay way jirtaa waxyaabo badan oo la qabtay way jirtaa laakiin guul lama gaarin waxa guusha loo gaar laayay waa baaxadda dhulka weyn in saa loo fahmaano aad baan u jecelahay waxoogaa yar baan ifin doonaa marka waxa laga hadlayo waxa la moodaa inay fududahay xubno qaar waxa la oran gobolka wax kama qaban degmooyinka wax kama qaban maaha sidaas in la arko dhulka aad buu fiican tahay hadda tiimkii golaha nabadda iyo guurtida Soomaaliyeed way soo arkeen waa la fariiri doonaa waxaan tusaale soo qaadan qabalaha garani waxa maamusha degmada erar qabalaha garani wuxuu degmada erar jiraa 219 kilomitir ayuu jiraa inta hadda la haysto ee cadaliyo way ka dhantahay fuurimaysi way ka dhantahay halka hadda gacanteena ku jiro iyo degmadii maamulaysa 219 kilomitir buu jiraa gobolka oo degmada erar 60 kilomitir u jira marka lagu daro 284 kilomitir baan u jirnaa oon wada lahayn casbuli marka la gaaro buur baa la galaa kulay xubno badan way arkeen wasiir Subeeriyo wasiir Cabdi Fataax maarinta way arkeen aaga qofka tago maalin labaad kuma noqon karaba gaariga maalinta tago ma soo noqonayo in dhaxda laga yimaado la soo qaado mooyee afdam iyo dan la helay wadadeena cubala waa la heystaa waa loo yahay maamulka afdam ee maamulaya qabalaha dan la helay wuxuu u jiraa 249 kilomitir afdam buu ka soo bixi degmada erar wuxuu ma 90 kilomitir soo erar buu ka wareegaya baaxad inta laga waxa jirta dhibaato annaga gobolka City markaan rabnay inaan tago waxa weeyaan dan la helay 309 kilomitir baan soconaya ay wada jirin dhulku marka laba u qaybsan yahay qaybna deemeed baa la dhahaa qaybna dhun yar baa la dhahaa qaybtan deemeed kullu hogaaminta inta badan way arkeen golaha wasiirada aad buu tageen qarraf iyo madane aad baa loo tagay iyadoo haddana ay saas tahay oo dhulkeeni ka soo kacnay istiil loo dhulkeeni baa daba socda saddex degmo wada hadallaan noo socda saddexda magaalada Cundhufo iyo cadeyti garbaciisa wada hadallaan noo socda xaggan ha dhigno mudane madaxweyne hadda waxa lagu dagaalamayo waa gudaheeni weeyaan qabalaha madane ninka alla tusiibadsi waana dhaafade qabalaha madane hadda waa gadoon geed ogaasi waxa weyn degmadii mulli amba ma isa qarka loo saaran yahay
degmada gablo la yiraahdo qalactu halkii dagaalkii u horeeyay jaal ciidankeenu galay waxa weyn xaggaas la taagan yahay afarta koona dadkii laga fadhiya magaalada cunufo 10 kilomitir baa loo jira dan la helay marka la joogo magaalada dhexdeeda xabado ku daadanayaan iskuulka ku daadanayaan caafimaadka ku daadanayaan saddex shaqor baan joogay xaaladdu marka way adag tahay si la moodayo maaha solo dhigaya maaha kulli xukuumadda u sareyso madaxweynuhu dadaalo fara badan buu ka bixiyay xaqiiqda marka loo noqdo waxyaabo badan oo ogeyn oo la qabtay oo hadda la sheegi karin waqtiga xusi doono oo la qabtay way jira haddana istiin la guusheeno way taagan tahay marka golaha xildhibaanadu in saa loo noqdo dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad Soomaaliyeed gurmad uu gobolka City iyo waxa weyn taageerada uu xafiiska madaxweynuhu iyo xafiiska nabadgelyo bixiyo kaliya laguma qabanayo dhulka waa markan xaqiiqda oo noqono weyn dhulkan waxay u baahan tahay waa gurmad Soomaaliyeed waa hiil walaal weyn dadkaas waxay u dhimanayaan waa magaca Soomaaliyeed shalay waxa ka tagnaa calanka cafarta wax dhibaato soo gaadhay ma jirin hadda laakiin waxa u dhimanayaan ay u rafaadaan waa magaca Soomaaliyeed weyn marka anagu rajo waxaan qabnay hadda madaxweynaha khayr Allah siiyo saddex maamul oo ku meel gaar la sameeyay xagga miisaanada wana naga taageeray shidaalka wana naga taageeray wax badan bay qabteen maanta marka rajo badan baan qabnay meesha hadda 230 kilomitir loo jiro haddii halkii la diga centerkii wax badan baa qabsoomay miisaaniyadan badan hadda baxayso waa laga reesan oo maamulkii ka joogsan xagga abaabulkii wacyigelintii waxa weeyaan cudud ciidan baa la sameeysan marka arrinkaas insa loo fahmo anu kulli xilliban soo koob waqtigii waan soo koobaya xagga hore markaan yaan ku daraya kulli wadooyin la qabtay uu jira ceel la qabtay uu jira laakiin waxaan rabnaa in aan ka sheegno wax ilaahay abuuro oo galbeedka ka fulay ma jiro xafiisada hore marka la hay miisaanada la bixiyay fadlan ha laga xisaabtamo marka laga reebo health centerka qarraf wax ilaahay abuuro oo dhismay waxa kale oo soo raacay biyo xidhanka xafiiska dooxooyinku waad isagana gabagabo ku marayo wax badan aan aaminsanay inuu mustaqbalka ka badilayo iyo ceel isla xafiiska dooxooyinka qodayo waxa weeyaan ariraale ama magaalada cunufo dusheeda lagu qoday wadooyinka la sheegayo tii waxa weeyaan xorriyo gabdhalu wax ka fulay ma laha waa la xadxadhayn tan kale waxa weeyaan casbuli dan la helay waxba kama dhaqaaqin casbuli maxaan ku dhahaa badweyn waxba kama dhaqan ceelkii badweyn 2014 la bixiyay uu taagan yahay madaxweyne still now riigii baa dul taagan gaadhigii adeega bixinaya baa dul taagan health center baa loo qabtay uu taagan yahay 2011 waa mashaariic la bixiyay still now way taagan yihiin haddii waxa weeyaan waxaas wax badan laga qaban lahaa oo biyo la heli lahaa oo waxa weeyaan la heli lahaa caafimaad wax badan ba yaa fuli lahaa dadka halka ku noqday inta la soo qaadayo wax badan ba fuli lahaa kulay waqti badan baan u baahanahay xagga abaaraha wax badan baa laga qabtay laakiin still hadda way taagan yihiin dadka xooloogi wax abaar qaaday iyo wax deegaanka inay sana qaadan weey marka dadkii way soo urureen centerada ku urureen in IDB inta loo aqoonsado raashin joogta loo qoran kula rajeynaya waqtiga ciriiriya aad badan ma santiin السلام عليكم مقعيقو واهبة محمود عمر قبل كسيتي بان كسو جيدا دقمة إيرر وحن سلام يا أفيانا دا أفيان كحيجينكا مدحوينا كحيجينكا دمان قولها وسير دا يو حمناها حلي بانا دباءات بانو سلام يا والله أوجي هاي دقان كينا وحا كتيرا حالات با كتيرتا وان ولا أوجنا هاي عيدا كينا قار كاها waxaan leeyahay intii dhimatayna ilaahay u naxariisto allaha ku macsuumo janna firdawsati al-a'la baan leeyahay inta dhaawacana allaha noo caafiyo kuma dheeraanayo in badan baa laga soo hadlay haddaan u sii gudbo waxaan rabo inaan ka hadlo galbeedka gobolka City inaan ka hadlaan rabaa kuma dheeraanayo insha Allah waa la og yahay inay xaalad aad u daran ka jirto galbeedka gobolka City maalin kastaba inuu weerar haysto inay dagaal ka jiraan waa la og yahay waxay canfartu had iyo jeer abaabulayaan iyakii iyo ciidankooda iyo shacabkooda iyo isku duuban mar kastaba inay ku soo duulaan shacabka masaakiinta ay xoolo dhaqatada inay ku soo duulaan bay mar kastaba isku dayaan ciidankeeni way dhex fadhiyaan way joogaan mar walba waxay leeyihiin annagu amar ma haysano bay leeyihiin marka arrinkaas ma hogaaminta ciidanka ayaa loo og mise waa waxay iyagu ku qancinayaan shacabka masaakiinta ee dhibaatada inta lacag ay haysato waxaan weeyaan hadii dadkaas dhibaatada inta lacag haysato ee la arkayo la wala og yahay xal in lagu difaaco hadii loo waayay maxaa shacabka runta loogu sheegi laayahay oo loo oran laayahay annagu nima difaaci karayno aaga iskaga soo baxa maxaa loo oran laayahay inta ku dhimanayaan maalin kastaba dhiigoogu halka ku daadanayo oo runta loogu sheegi laayay ama sideeda maxaa looga hawlgali laayay xukuumaddu maxay uga qorshaysan oo ay doonaysaa inay uga
ay ku badbaadiso masaakiinta siday rabtaa inay ku badbaadiso dhiigooga waqti walba had iyo jeer daadanayo su'aashayda koobaad waa taa talabaad haddaan u gudbo waa abaarihii ka dhacay galbeedka gobolka city abaarta xoog bay u saameysay dad badan baa ku dhintay xoolo badan baa ku dhintay dad baa ka soo barakacay degmooyinka gobolka city bay daadsan yihiin ilaa haddana gurmad ku filan ma haystaan su'aashaydu waxay tahay maha xukuumadda ayaa ka gaabisay oo sideeda uga hawlgelin miso maamulka gobolka city ayaaba wixii loogu talagalay ee loo qorsheeyay loo geeyay ayaa dadkaana sideeda u gaarsiinin mudana madaxweyne xabadaas waxaan rabaa inaad iiga jawaabto su'aashayda saddexaad waxay tahay horta waan ognahay aagaas dhibaatooyin fara badan inay ka jirto guutida waa loo diray deegaanka way tageen hogaaminta qof aanan tagin oo soo arkin ma jirto waa la wala og yahay dhibaato aad u fara badan baa taala waa meel ballaaran waa meel aad u baaxad weyn weeyaan xuduudo inaan loo sameeyo mar hore waan codsanay ahayd waxaan noogu jawaabtay in aan dib dambe arrinkaasi waa loo soo hadal qaadaynin ay dadkaasi dibadejin u baahan yihiin miisaaniyad u baahan yihiin aad loo qabanayo maxaa keenay annagu maanta waxa aan niyadda ku hayno oon aad ugu faraxsanayn oon lahayn ajandaha ayaa lagu soo darayaa degmooyinkii loo qabtay ajandaha ayaa lagu soo darayaaba ayaan islahayn hadda ajandihii kama muuqato dhulkaas waa dhul aad u baaxad weyn waxay u baahan yihiin gobol inay helaan bay u baahan yihiin degmooyin inay helaan bay u baahan yihiin sababta keentay in ajandaha maanta lagu soo dari waayo waa xaalad emergency weeyaan oo in si degdeg looga jawaabo weeyaan ma aha mar walba inaan ka sheekayno warbixinta waa lagu soo daray si fiican buu uga hadlayay madaxweynuhu dhibaatada ka jirta waa la wala arkaya inaan afka mar walba aan ka hadalno maahe maxaa uga ba'ay inaan ficilkii la imano oo waqtigii sideeda aan uga jawaabno maxaa uga ba'ay baan leeyahay mudan madaxweyne waa warqad baa madax iyo xafiiskaaga laftigeega ka soo baxday waa la shaambadeeyay waa hogaamintii maxaan idhaahdaa cabinetkii waa la hawlgeliyay way joogaan aagaasay joogaan shaqadii way ku jiraan sababta keentay iminka in ajandaha lagu soo dari waayo waa maxay dhibta jirtaa canfartu iyaga oo la dagaalamaya TPLF ayay ansaxsadeen gobol iyo degmooyinba annaka maxaa nooga ba'ay dhibaatadii wixii naga dabooli lahaa maxaan idhaahdaa aan kaga nasan lahayn had iyo jeer inta looga soo gurmanayo ay shaca afdam kootaabiki inta looga gurmanayo ina dhexdoodii looga gurmado oo degmooyinkoogii loo ansixiyo oo si emergency ah loogu ansixiyo maxaa taa keenay sababta taa keentay ee hadda ajandihii looga reebay kalfadhigii aan sugaynay waa maxay oo waqti kale loogu sii riixaya annagu markii hore waxaan filaynaba ina degdeg la iskugu yeedho xildhibaanada oo kalfadhi loo sameeyo oo si degdeg looga jawaabo yaaban ku tala jirnay maxaa keenay inaa kalfadhigii dhannaa ee la sugayay in dib looga dhigo maxaa keenay aad baad u mahadsantihiin waan islaamayaa ka bax